السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أرديد قيمة له كسو دواد عشر كان عاوة عشر كان عاوة حنكبران دونا سيدا الله سميو ان invitation أما كار ويدين كار أيان سمين دونا أما سيدا تقانان مهر وعن ان كار كيسا سيدا الله سميو وحان سمين دونا كار كنوعانا waxaan rajaynayaa inaad aragteen kaarkaasi aadka u quruxda badan mobilkeena ayaan ku design gareyn doonaa ku soo dhawaada casharkeena ugu horreyn si aan u sameeyno kaarkaasi waxaan u baahannahay inaan helno wax loo yaqaano backgroundkaas inaan helno ayaan u baahannahay backgroundkaas haddii aynu rabno waan samaysan karnaa balse waxaa habboon inaan la soo degno oo aan kadibna isticmaalno maxaa yeelay marka aad tahay qof graphic designer ah waqtigaaga waa lagu xisaabtamaa oo waqtigaaga lama rabo inuu kaa lumo oo aad yacni waqti dheer aad qaadato shay ayaa waxaa lagu dhihi karaa muddo 30 daqiiqo gudaheeda inaad igu samayso ayaan rabaa ama muddo 10 daqiiqo gudaheeda marka sida ugu fudud inaad isticmaali karto ayaa la rabaa okay ugu horeen waxaan gali doonaa applicationka Pinterest ayaynu soo furanaynaa ugu horeen waxaan soo furan doonaa Pinterest-geena ayaynu soo furanaynaa okay markaan sidaan Pinterest u soo furano waa ujeedaa waxyaabaha ku soo bixi doono waxyaabo badan ku soo bixi doono balse waxyaabahaas muhiimadda ma ahan qaybtan qoraalka aad ku dhufanaysaa kadibna waxa aan rabno ayaan ka dalban doonaa halkaan okay aniga haddeer waxaan rabaa inaan dalbado within frame background okay within frame background ayaan halkaan ku qori doonaa within frame background ayaan halkaan ku qorayaa adigana haddii aad rabto shaashadan ku soo saaray sidaas u geli qoraalka kadibna way ku soo baxi doonaa ayagoo badan midka aad rabtid ee isticmaali doontaa markaan sidaan ugu qoro kadib waxaan dhihi doonaa searching ayaan dhihi doonaa searching markaan dhahno isla markii waxyaabahan ayaa inoo soo baxayo sidaad arkayso waa ujeedaa waxyaabahan oo idil waa within frame background waay yacni waad isticmaali kartaa waa ku free midka aad ka hesho ayaad la soo degi doontaa oo aad u isticmaali doontaa yacni invitationkaada ama kaarkaaga midka aad adiga jeceshahay ayaad u isticmaali doontaa waa ujeedaa waxaanoo idil aniga haddeer waan ku tusinayaa oo hal xab un baan la degi doonaa dhammaantooda lama degi doono okay markaan sidaan halkaan aad ugu jirto midka xoogaa ku soo yara jiita qaybtiisa ayaad ku dhufanaysaa okay anaga haddeer midkaan ayaan bala degaynaa oo mid kale ma degsan doono haddii aan rabnan hoostan waa ujeedaa waxyaabo kale oo ka qurux badan ayaa yaalo laakiin aniga muhiimaddeeda waxay tahay inaan idin fahansiiyo sida loo sameeyo ee muhiimaddeeda uma socdo inaan waxyaabahan quruxda badan aan idin tutuso ama idin soo bandhigo adiga ayaa la soo degi kara midka ku qanciya xilligaasi marka aad qofka u sameynaysana waad tusi kartaa oo noocaan ayaan kaaga sameynayaa ayaad dhihi kartaa okay ugu horeen midkan 3 dhibcood ayaan ku dhufanayaa kadibna download ayaan dhihi doonaa okay sidaad arkaysa hadda sawirkaani waa lay dejiyay intaan halkaan ka baxin waxaan kaloo degsan doonaa faraantiga loogu talagalay in lagu soo daro ayaan degsanaynaa okay ringis ayaan halkaan ku qori doonaa okay ringis ayaad ku qoraysaa applicationkan waxaan rabnaa inaan waxayna ka degsano kadibna aan tagno applicationkeeni Bixlab okay ringis markaan aad qortid shaashadan ku soo saaray hadii aadan qori karin kadibna waxaad ku dhufanaysaa calaamadda searching-ka haddeer marka waxaa inoo soo baxi doono faraantiyo fara badan ayaa inoo soo baxi doono waa ujeedaa waxaanoo dhan waa faraantiyo ama ringisyo sidaad u taqaano ringis keliya waa luqadda ingiriishka faraantina waa anaga luqadda sidaan ku dhahno waxyaabo kaloo la dhahan haddaad taqaanaan sida fargal iyo waxyaabahaasna waa la dhahaa marka koleen muhiimad waxay tahay inaad fahamto okay midkaan ugu horeeyo ayaan ka dooranayaa ayaan ku dhufanayaa kadib haddii uu midkaasi ku qanci waad soo degsan kartaa haddii uu ku qancinin halkaan ayaad u soconaysaa oo kuwa kaloo fara badan ayaaba halkaan ku keedsan oo ku jira marka midka adiga ka qanciyo ayaad xilligaas la soo degi kartaa aniga kali waan ku tusinayaa oo inaad yacni hadhoodii idhiin macallin waan ka waayay ringisyadii iyo waxyaabahaas waan ka waayay inaad idhiin bas aan rabaa waa ujeedaa waxaanoo idil waa ringisyo kaliya waxaan ku sameynayaa tixraac ayaan ku sameynayaa yacni waan ku soo bandhigoyaa inay ku jiraan halkaani oo aadan ka waynaynin midka aad rabtana aad ka soo isticmaali karto ayaan ku fahansiinayaa waa ujeedaa kan hataa waa ujeedaa waa ringisyo marka waa degsanayaa haddeer midkan oo kale waan dejinayaa haddii waa degsanayaa kadib mid kale inuu ku qanciyaa laga yaabaa waa raadsanaya mid kaloo kaasi ka qurux badan inaa aragtidaa laga yaabaa yacni meeshan haddii aad mar soo gasho waxaad arkaysaa waxba waxay kasii qurux badan ayaad arkaysaa kadibna si aad ugu dhufanayso mid baad u raacaysaa mid baad u raaci doontaa midka aad xilligaasi ugu dambeyn ka heshid ayaad ula soo degi doontaa okay haddeer sidaad arkaysataa midkaani aad buu usoo ifayaa oo waa kal ilaab inoo deji naftirkiisa waan isticmaalaynaa okay markaan sidaan halkaan waxyaabahan aga soo degsado waan ka soo baxi doonaa waxaan tagi doonaa oo si toos aan u aadi doonaa
applicationka Google ay tagaysaa. Okay, Google waxaan ka rabno ayaan ku fahansiinaa. Okay, Google markaan soo furto kadib waxaan tagi doonaa website-kii la dhihi jiray remove bg waa soo baratay hadeer waqti kuma sii luminayno. kadibna waad dooranaysaan remove bg ayaad dooranaysaan. markaad doorataan waxaad soo gelin doontaa sawirka aad rabto in background laga qaado. Okay, upload image ayaan ku dhufanayaa. kadibna waxaan soo dooran doonaa faraantigan ayaan soo dooran doonaa si background laga reebo. waxaan ku dhahay applicationka Pixlab background wuu ka reebaa, laakiin waa background iyo shaygaada markay kala duwan yihiin ayuu si fiican kaaga reebaa. Okay, markaad hadeer sidaan u dejino kadibna download ayaad ku dhufanaysaa. download ayaad ku soo dhufan doontaa. markaad download ku soo dhufato Google naftirkiisa waxyaabo kale ayaynu ugu baahannahay. Okay, maxaan u baahannahay wax loo yaqaano location waxa loo yaqaano ayaynu u baahannahay. horta hal mid idin sheego waxaa jira website icons looga soo dego. icons waxaa la yiraahdaa sida waxyaabaha taariikhda calendarka oo kale markaa aragto waqtiga oo kale markaad arkayso waxyaabahaas ayaa la yiraahdaa. waa idin tusinayaa. Okay, icons ku qor halkan, icons ku qor. Okay, afwan gacanta iga dhacday qaybta searching-ka. icons ku qor shaashada ayaan ku soo saaray. kadibna searching waa arkaysa halkan waxa ku soo qormi doonta falakshanka ay ku dhufanaysaa oo website ugu horeeya ah. markaad falakshanka ku soo dhufato oo aad soo gasho website sidaan ay kugu soo baxi doonaa. kadibna waxaad dooranaysaa qaybtan searching for icons waxaad ku qori doontaa iconka aad rabtid inaad isticmaasho. aniga waxaan rabaa tusaale ahaan goobta arooska ka dhacayo inaan sheego. marka icon noocee ugu haboon waxa ugu haboon icon loo yaqaano location waa bartilmaameed. Okay, location ayaan ku qorayaa. qoraalka shaashada ayaan ku soo saaray. location ku qor. kadibna searching waxa ku soo baxi doonaa location fara badan. waa ujeedaa kuwaana la yiraahdaa icons. waxaa laga yaabaa markaan icons ku dhahay inaad ila yaabtay, balse icons kuwaana la yiraahdaa. midka ka qanciyo ayaa soo dooran doontaa, laakiin ha ahaado midka soo dooranaysid mid balaaga leh sida kan oo kale inaad soo degsato. Okay, kan oo kale inaad la soo degto. kuwa balaaga leh inaad la soo degto ha ahaadaan sida kan oo kale. marka hala soo degin kuwaan oo colorska kala leh. yacni waxaa la rabaa design-kaaga inuu ku soo baxo oo aad design ayaad saaraysaa oo mid color leh ma ku fiicna. Okay, marka kuwaani midkaan rabo ayaan kasoo degsanayaa. tusaalaan midkaan markaan degsanayo waxaad dooran doontaa halkan ay ku qoran tahay bng oo cagaaran. kadibna waxaad dhigaysaa free download ayaad dhihi doontaa. si free ah ayaa lagu dejin doonaa. aniga mar hore ayaan inta ka hor degsaday anigoo qof u sameynayo wedding card. marka waxaan sameynayaa download again ayaan dhihi doonaa, balse adiga download si caadi toos ayuu kugu degi doonaa. midka ku qanciyo ka soo degso. Okay, hadda mid kale ayaan ku tusin karaa. mid kale ayaan degsanaynaa. tusaale ahaan midkan hataa waan degsan karnaa. kadibna bng ayaan ku dhufanayaa. kadibna free download ayaan dhihi doonaa. asigana download again mar labaad lii dejinaya. yacni mar hore lii dejiyay aniga moobiiladeedu way ku jiraan ayagoo fara badan, balse hoos ayay jiraan. hadeer waxaan usoo degsanaya waxay tahay inay kor ii soo maraan. Okay, aan ka soo wada baxno hadeer iyo shaqadeenii sameynta wedding card professional invitation card ayaan sameynaynaa. Okay, waxaa jira horta laba qaab ayaa loo sameeyaa. qaabka ugu horeeyo cashirkan ayaan ku baranaynaa. qaabkan wax sawir ah laguma soo daraayo, kaliya waxaa la isticmaali doonaa magac iyo qoraalo. Okay, applicationka Pixlab soo furo oo applicationka soo dooro. marka applicationka soo doorto cancel ayaan iska dhihi doonaa oo project cusub ayaan rabaa inaan hadeer abuurto. Okay, qoraalkan mar walba waan delete gareyn jiray, waan iska delete gareynayaa. kadib waxaa imaanaysaa maanta qaybtani geeskeed imaanaysaa. maanta wax color ah ma ku soo darsani doontid. Okay, qaybtan markaad timaado waxaad dooranaysaa from gallery markaan doorano waxaan soo isticmaali doonaa ama aan soo qaadan doonaa background-ka aan rabno inaan ku sameyno wedding card-keena. Okay, background-ka aad soo degsatay koow ayaad ku soo darsanaysaa waa midkan. kadibna waxaan soo dhihi doonaa tig ama sax ayaa ku soo dhufanaysaa. sidaad arkayso isla markiisi toos ee halkan lagugu soo geliyay. marka halkan lagu soo geliyay hadeer waxaad bilaabi doontaa inaad dushiisa ku shaqayso waxyaabaha aad rabto aad ku soo darsato. Okay, hadalkayaan ku sii dheeraanin qaybtan imaaw ee textiga. kadibna balaas dheh. kadibna qalinka dooro oo text waxaan ku soo darsan doonaa xaflad meher ayaan ku soo darsan doonaa. Okay, farwaaweyn ka dhig xaflad meher ayaan ku soo darsanaynaa.
xaflad meher oo farwaaweyn ayaan kusoo darsanaynaa kadibna okay ayaan soo dhihaynaa halkan ayaan dhigani doonaa xaflad meherka halkaas geeska kore ee sare ayaynu dhiganaynaa okay halkaas markaynu sidaas u dhigano waxaan tagi doonaa qaybtani color waxaan sii doonaa dhammaan colorka madowga ah ayaan sii doonaa wax kale ma isticmaali doono oo yani waa la daabici karaa shaygan waa la daabaca yani waxa loo qeybiyaa dadka arooska ka soo qaybgalayaasha martiyaasha ayaa loo qeybiyaa marka AB font ayaan tagaa AB font markaan imaado kadib waxaan dooran doonaa fontiska aan rabo kadib waxaan dooran doonaa fontiska aan rabo qaabku oo uu ekaanayo fontiskaaga soo dooro okay aniga hada midaani oo applicationka caadiga ayaan doortay oo ay ku qoran tahay Amranath Bold ayaan doortay midaasi ayaan doortay kadibna okay ayaan soo dhahayaa waa ujeedaa hadeer marka xaflad meher sidaas ay u qoran tahay halkaan ayay ugu soo darsantay marka hadeer waxaan ku qoran doonaa qoraal okay kadibna balaas ayaan tagi doonaa inta ugu badan qoraal ayaan isticmaali doonaa okay halkaan marka waxaan ku qori doonaa qoraal yariis ayaan iskaga qoraynaa balse xarafka ugu horeeya xaraf weyn ka dhig wa'du waa xaraf weyn ka dhig waxaa sharaf weyn inoo ah ku qor waxaa sharaf weyn inoo ah ku qor waxaa sharaf weyn inoo ah okay waxaa sharaf weyn inoo ah markaad ku qorto inaad nagala soo qayb gashid ku qor marka inaad nagala soo qayb gashid aw qore marka qayb gashid okay Soomaali waa taqaanaa ma ku sheegay laakiin erayada aan ku qoray waad maqlaysaa waxa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gashid markaad sidaas ugu qorto xafladda meherka ayaad dhihi doontaa okay xafladda meherka ayaad dhihaysaa xafladda labada waaye xafladda meherka labada ka dhig waa caadi ama hal da labada baa ka dhigi kartaa maadaama Soomaalida qaarkood labada isticmaalaan qaarkoodna hal da ay isticmaalaan waa isku mid laakiin wax ma dhibayo okay xafladda way shidantaa yani labadaas da way shidantaa okay kadibna okay aan dhihi doonaa marka okay sidaan uu soo dhaho kadib waxaan sameyn doonaa kalarkii madowga ayaan sii doonaa oo kalarkaani maraba inaan isticmaalo kalarka balaaga ama madowgaas ayaan ka soo dhiganayaa kadib markaan kalarkaasi ka soo dhigto waxaan tagi doonaa halkan AB font tookadan waxaan isticmaali doonaa qaybtan my fonts oo farta meher wacan ayaan isticmaali doonaa si toos u adeegsan doonaa okay waa fartaasi inaad haysataan ayaan filayaa haddii aadan haysan fararkaaga kale ee halkan kuugu jiro midda ka qanciso ku soo darso waa ujeeda aniga hadeer midaan aad ku soo dhuftataa aad bay u qurux badan tahay waa ujeeda waa soo koobi karaa halkan waa dhigan karaa aad bay qurux badan tahay balse midaasi oo waxaan iska isticmaali doonaa arooska ama xaflad aroos ayaan isticmaalayaa kadib waa ujeedaa marka sidaas oo kale ayaa ka dhigaysaa okay sidaasi ayaan ka dhigani doonaa waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gashid xafladda meherka waa ujeedaa kadibna soo zoom garee xoogaa soo yara zoom garee oo ha noqdo qoraal la arki karo kana soo yara siki qaybtaasi okay marka sidaan aan ugu soo darsano qoraalkeenan waxaan sameyn doonaa hadeer marka waxaan ku soo darsan doonaa magaca wiilka arooska magaca arooska ayaan ku soo darsan doonaa okay ha ila yaabina magaceega ayaa isticmaali doonaa macalinkana isdiina qoftaas oo naagta isticmaali doona xabadiisa waa isdhiina waxaas ma jiraan kaliya waa magac ayaan isticmaalaya midkayga iyo sidoo kale mid kale oo gabar ayaan isticmaali doonaa adina laakadhoodi waxaad isticmaalaysaa qofka aad u sameynaysa magaciisa iyo xaaskiisa magaceeda ayaad isticmaalaysaa okay magac marka farwaaweyn ayaa lagu qoraa farwaaweyn ayaad ka dhiganaysaa kadib waxaan ku qori doonaa Maxamed Xasan Cadow ayaan halkan ku qori doonaa okay Maxamed Xasan Cadow adigana magacaaga ku qoro sidoo kale qofka rabtid ku qoro haddii aad xariifko isla socodin xariifkaaga ku qoro haddii xariifado isla socodin xariifadaada ku qoro dhib ma lahan oo no problem waa kaliya waa tusaale kadibna okay ayaan soo dhihi doonaa okay markaan soo dhawo halkaan ayaan soo dhiganayaa markaan sidaan u soo dhigto waxaan tagayaa color mar waliba colorka waxaad ka dhigaysaa colorkaasi balaaga ayaad ka dhiganaysaa markaad colorka balaaga ka dhigato AB font maw kadibna dooro farta aad rabto farta noocaas ayaan ka dhiganaynaa oo fartaas ayaa aad ugu soo baxayso lana akhrin karaa qof walibana uu aqoonsan karaa ama arki karaa kadib markaan sidaas ugu soo darsan hadeer magacaan waxaan ku xijin doonaa faraantiyaalka ayaan dhexdan soo dhigi doonaa magaca gabadha iyo sidoo kale magaca wiilka waxa u dhaxaynayo faraantiyaasha u dhaxaynayo okay faraantiyaasha midkii aan background ka soo qaaday ayaan soo dooranayaa okay waa ujeedaa midkan ayaan soo doortay kadib waan yareynayaa cabirka yaree oo waxaa la rabaa dhexdaasi inuu dhigmo cabirkiisa yaree oo inta qiyaasta aad ugu talagalatay ka dhigo
okay dhaxdaas aad ku aadinaysaa okay dhaxdaas ha ku aadanaado oo qaybta dhexe sidaas ugu aadi haddana marka waxaan ku dhufan doonaa magaca wiilka kadibna copy ayaan ka sameyn doonaa copy dooro kadibna edit yani waxaan rabaa farta inay sidaas camal ugu qoranto oo farta inaan babedelo marawa waxaan ku dhahay designer haddii aad tahay waqtigaaga waa muhiim waqtiga waa la soo koobtaa okay marka waa tirtiraysaa maxamed xasan cadow waa iska tirtirayaa kadib magaca gabadha ayaan gelin doonaa aniga haddeer magac ayaan ku qori doonaa magacan ha isdheyna macalinku waa xabadiisa waxaas ma jiraan ma fahanteen marka magac caadi ayaan ku qoranayaa okay saciido ayaan ku qorayaa okay saciido waxaan ku qorayaa saciido cusmaan xasan waa magacaan iska soo qabsaday le saciido cusmaan xasan okay magacaan haddeer looba maskaxdeedu ku soo dhacay saciido cusmaan xasan balse adiga hadhoodii waa inaad fahamtaa qofka magaciisa laga rabaa oo saxan okay kadibna okay ayaan soo dhihi doonaa markaan okay soo dhaano halkaan ayaan ku soo aadin doonaa oo qoraalka asigana qaybtan hoose ayaan ka soo marin doonaa kadibna xoogaa waan yar fidinaynaa okay marka waa ujeedaa haddeer waxaan sidaan ku haysanaa xaflad meher waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gashid xafladda meherka magaca wiilka oo ah maxamed xasan cadow sidoo kale faraantiyaalkii ayaynu haysanaa sidoo kale waxaynu haysanaa magacii gabadha oo ah saciido cusmaan xasan okay marka hoosha way socotaa oo hoosha dhex ay sii maraysaa haddeer markaan magaca gabadha sidaan ugu soo darsano waxaan ku soo darsani doonaa taariikhda yani maalinta guurkaasi dhacayo oo kale ayaan ku soo darsanaynaa okay qoraalkan ii door kadibna copy ii dheh kadibna edit ku dhufo qalinkaas dooro iska tirtir qoraalkan okay halkan arbaco ayaan ka dhigi doonaa maalinta arbaco anaga arbaca jeclaa waxaa rabtid ka dhigo talaado ka dhigo khamiis ka dhigo jimca ka dhigo sabti waxaa rabtid balse dhoodii waa inaad fiirisaa maalinka uu guurkaasi dhacayo okay ayaan dhihi doonaa kadib arbaca markaan ku qorto halkaani dhexe ayaan sidaasi u dhiganay doonaa okay halkaasi ayaan dhiganaynaa marka halkaasi sidaas aan u dhigano oo arbaca ayaan ku soo qoranay halkaas ayaan sidaasi u dhigani doonaa markaan u dhigan haddeer marka waxaan ku soo darsan doonaa laba shape anigoo ku qori doonaa bisha ayaynu qoraynaa okay balaas day kadibna shape dooro kadibna shape-kaaga waxaad ka dhigtaa kalarka balaaga ama kalarka madowga sidaad u taqaano kadibna shape-kaaga yara dhuubi shape-kaaga halkaani keen halkaani geeska shape-kaaga halkaani keeso kadibna sidaasi u yaree okay marka shape-ku waa yara dhuubin doonaa horta copy ayaan ka samaysanaynaa si uu hadhoodii inoo dhibin oo yacni soo jiididiisa ayaa inoogu adkaanayso marka sidaasi ayaan copy aga samaysan doonaa kadibna waan isku aadin doonaa shape-ka halkaasi sidaasi xoogaa haddii aad rabto yara dheereyso oo waad dheereysan kartaa haddii aad rabtona waad gaabsan kartaa kadib dhuubi shape-kaaga ha noqdo mid oo aad u dhuuban oo yacni zaa'id u yar kan kaleetana sidaasi oo kale asigana yaree waa ujeedda haddeer marka sidaasi ayaynu yeelnay oo xariiqan ahaan ayaan u isticmaalnay kadib haddeer bisha ayaan ku qori doonaa okay tagastaga imaaw kadibna balaasta soo dooro kadibna qalinkaaga ku dhufo bisha aad rabto ku qor bisha hadhoodii waxaad ku qoraysaa bisha uu qofkaasi guursanayo okay anaga January ayaan ku qoraynaa January ayaan ku qoraynaa oo waa bisha koowaad ee sanadka ayaan iska soo qaadanaynaa kadibna color ayaan tagaynaa waxaan ka dhigan doonaa colorkaasi balaaga ah kadib marka haddii aad rabto farta ayaad ka bedelaysaa ab font ayaad imaanaysaa farta nooca ku qanciyo ayaad ka soo dooranaysaa okay haddii aad rabtana qaybtan fararkaaga inaad imaato farta ku qanciso ka soo dooro khasab ma ahan farta aniga isticmaalo inaad isticmaasho muhiimadda waa inaad fahamtaa shaygan in wax laga bedeli karo waa inaad fahamtaa horta okay January haddeer sidaas ay iskaga qormaysaa kadibna ayada un baan yacni copy dhahaynaa okay ayadan copy dhihi doonaa markaan ayada copy dhahno waxaan sameyn doonaa haddeer kadibna waxaan ku soo darsanaynaa okay afan intaan halkaan ku dhufanin haddeer marka waxaan ku soo darsan doonaa taariikhda bisha maalintaasi waxay tahay oo kale edit ayaan dhahaynaa copy markaan soo dhaahdo 20ka ku qoro okay tusaalaan 20 ayaan ku soo qoranayaa kadibna waan soo qabanayaa 20ka ayaa soo jiidaysaa mar walba waxa copy dhaado halkaas ay ku tagi doonaa 20ka dhexdaani keen kadibna sidaas u soo yara weynay okay 20ka dhexdaasi ayaad ku aadin doontaa okay yani haddeer sidaan waxay noo cadeynaysaa maalintii arbaca tahay bisha January ay tahay 20keeda ay tahay okay waa sanadkii marka su'aalaha taale sanadkii waa okay marka sanadkii waxaas haddeer ay ku soo darsanaynaa balaastaas dooro kadibna shape dooro kadibna shape-kaaga waxaad ka dhigataa shape-kii madowga ahaa kadibna tig soo dheh kadibna waxaad samaynaysaa sida aad halkaas ku soo sameysay shape-ku waad dhuubin doontaa okay shape-ka yara dhuubi waxaa laga rabaa kaliya inaan ku qorno sanadka okay sidaas oo kale u yara dhuubi oo halkaasi la sin
sanadka kaliya ayaynu halkan ku qoraynaa okay inta yar aan yar dhuubinin koob ayaan ka sameysanayaa si hadhoodii uusan ii dhibin yacni soo jiiditaankiisa aysan igu adkaanin yacni haddii aad sidaas ku isticmaasho soo jiiditaankiisa ayaa kugu adkaanayo okay kadib marka yar dhuubi oo okay sidaas ayaan ka dhiganayaa asigan marka asigana sidaas aga dhigto kadib waxaan ku qoran doonaa sanadka ayaan halkaani ku qoranayaa okay sanadka marka si aan ugu qorto waxaan koobi dhihi doonaa 20kaasi ayaan koobi dhihi karaa kadibna waxaan sameynayaa qaybtan imaan koobi dheh kadibna ku qor sanadka arabtid ku qor ama sanadka qofkaasi guursanayo okay aniga tusaalaan 2026 iskaga qoraa 2026 ayaan iskaga qorayaa kaliya waa iskaga qorid yacni shaygan aniga kuma lihi waqtigaani waa waqti saxan kuma lihi okay kadib qoraalka iska yare oo kaliya ha ku ekaado dhexdaasi ha ku ekaado aniga shaygan ma hubo xiligo dhacay ma aqaano yacni waa tusaale shaygan tusaale ahaan ayaan usoo qaadanayaa ha u fahmina inay wax reality yihiin balse adiga ayaa hadhoodii reality diyaarin doono kadib markaan sidaan sameyno waxaan ku soo darsan doonaa saacadda oo guur ka dhacayo oo kale ayaan halkan ku soo darsanaynaa saacadda oo guur ka dhacayo waa saacadee okay kadib tagasti dooro saacadda time ayaad ku qori kartaa waqtiga oo kale balse anaga Soomaaliyan iska isticmaalaynaa balse adiga ogow hadhoodii time ku qoraysaa yacni hadeer adduunka mala ahan jaahil lama ahan waa la yaqaanaa luqadda Ingiriiska wax badan ayaa laga garanayaa okay kadib saacadda ayaan iska qoraya aniga hadeer kadib saacadda markaan ku qoro 2 dhibcood ayaan siinayaa okay 2 dhibcood ayaan siinayaa hadhoodii dhibcahan waayo ay dhihiin fadlan mobilkaaga adiga waa iga fiican tahay waa taqaanaa sida loo isticmaalo dhibcaha intii laga keenaa dad qaar inay soo weydiiyaan abcabsi leh marka fadlan isku day inaad dadaashaan waxa qaybtan isticmaala inaad fiirisaan okay cashirkan wuu dheeryahay hala dul qaato cashirka waa muhiim waa cashir culus way bilaabatay kooriska kor ayuu u kacay cashiraantan way cuslaan doonaan okay markaan sidaan marayno waxaan ku qoran doonaa 2 sac ayaan ka dhigaynaa okay kadibna 2 dhibcood soo dooro kadibna eber raacsi marka 2 sac am ya ama bm am haddii aan ku kala sheego waa habeen iyo subax haddii aad rabto meeshan waxaad raacsan kartaa subaxnimo ama habeennimo middaa rabtid raacsi laakiin badanaa meher wuxuu dhacaa xilli subax ay tahay okay halkan marka waxaan ku qori doonaa am ayaan ku qorayaa okay am ayaan ku qorayaa kadibna qaybtaani ayaan soo dhigani doonaa saacadda qaybtaani ayaan ku aadinaynaa ee hoose kadib waxaan sameynaynaa kalarkan ayaan ka bedelaynaa sidoo kale fartan waa ka bedeli doonaa okay haddii aad rabto adiga ha bedelanin farta sidiis waa iska deyn kartaa ab font ay imaanaya aniga farta nooceeda waa ima qancinin waa iska bedelaya my fonts imaana midaas iska dooranaabo haddii aan rabani kuwaan waa dooran karaa waa ujeedaa waxaan dhan waa dooran kartaa khasab ma ahan inaa midda aniga isticmaasho kadibna okay aan soo dhahayaa midaani ayaan iska soo dooranaya maadaama ayada xoogaa ay yar tahay oo aadna u qurux badan tahay saacadda sidaasi markaan ugu soo darsano kadib hadeer marka waxaa inoo haray hal shaqo ayaa inoo hartay oo muhiim ah hashaasi shaqo waxay tahay inaan ku soo darsano location waa yacni goorta halku arooska ka dhacayo ayaa loola jeedaa okay location calaamadan usoo gaabsanayna waa ku tusay locationka waa la soo degay website-kaas run ahaantii background ma wato wixiisa background ma wato oo backgroundka inaad ka saartid uma baahna okay marka locationkan ayaan soo dooranayaa locationka ma arki kartid kalar madow ayaa kaa saarmayo balse soo dooro kadib ayaad arkaysaa hadeer waa ujeedaa mo okay kadibna yaree locationka yaree aad u yaree kadibna halkaani soo dhigo locationkaaga halkaani soo dhigo oo kasoo siki locationka marka waxaad ka dhigi doontaa waxaad ka dhiganaysaa locationkaaga goobta uu arooska ka dhacay waa halkii hotel maashow ayuu ka dhacaya arooskan okay kadib qoraalkan mid ka mid ah farta qaabka rabtid inuu qoratid soo dooro midaas January ayaan soo dooranayaa koob ayaan ka sameynayaa qalinka ayaan ku dhufanaya edit ayaan dhihi doonaa waxaan ku qori doonaa hotel 5 star ayaan ku qorayaa okay macalinkiina hotel 5 star ku aroosi rawaayay waa kaftan xiisa toosa ku jirnaa mafaade waana kaftami karnaa waa caadi okay marka hotel 5 star ayaan ku qorayaa okay 5 star adiga hotel aad taqaano ku qoro meel aad taqaano ku qoro aniga hotel 5 star iska qortay waa hotel aan aqaano oo Muqdisho ku yaala adiga inaadan aqoonin ayaa laga yaabaa oo aadan Muqdisho joogin balse cidii taqaano way taqaanaa marka hotel 5 star ayaan sidaasi aan ugu qortay waa ujeedaa hadeer marka sidaani aad samayso hadeer waxaa ku diyaarsanba
invitation kaaga waa diyaar waa la degaysaa kaliya kadib marka hadii aad rabto PDF ay u bedeli kartaa hadii aad rabto sawirkiisa ku ahaado sida PDF loogu bedelan waa baran doonaa insha Allah hadeer PDF uma bedelan doono oo kaliya waan seefan doonaa qaybtan hoos hadii aad rabto waxyaabo waxaad ku qori kartaa gacal iyo sokeeyo guurkiina lagu farax waxyaabahaas ku qori kartaa balse muhiim ma ahan midkaani inaa waxyaabahaas ku qorto insha Allah waxaan baran doonaa design-ka xigo ayaan ku baran doonaa ama nashqada kale ama qaabka kale oo loo sameeyo invitation cardska ama ayaan ku baran doonaa oo sawiraan ayaan ku soo darsan doonaa midkaasi insha Allah marka saaxiibayaal casharka waxaan rajaynayaa inaad fahamteen inkastoo iska dheeraa insha Allah shaqo wacan ayaan idin leeyahay okay save ayaan dooranayaa waan seefanaynaa kadibna waan isla arki doonaa sida uu ku soo baxi doono okay save marka waxaan dooranayaa save as image kadibna waxaad dooranaysaa ultra oo high very high ee ku digsanaysaa save to gallery ayaad dhihi doontaa hadeer marka wuxuu kugu seefmay gallery mobilka soo bax imaam gallerygaaga kadibna waxaad arki doontaa posterkii aad soo samaysatay ama kaarkii aad soo samaysatay okay ugu horeen xaflad meher ayaa ku qoran waa ujeedaa waxa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gashay xafladda meherka wiilka guursanaya waa Maxamed Xasan Cadow oo been laga sheegay oo la nabay gabadha guursanaysa waa Saciid Usmaan Xasan oo been laga sheegay oo aanan xitaa aqaanin qof la dhaho Saciid Usmaan Xasan ma aqaano sidoo kale maalintan Arbaca ayaan dhahnay January 20keeda 2026 aan dhahnay Allahna gaarsiiyo weli ma aanan gaarin kadibna saacad ayaan dhahnay oo saacadii waa ujeedaa waa 2 AM ama 2 subaxnimo inta badan Soomaalida xiliga uu meerkeedu dhaco waa xiligaasi goobta uu ka dhacayana oo location-ka waa hotel 5 star okay marka saaxiibayaal shaqo wacan tookadiina waa soo raaxaysta soo baashaala aan idinka arko midkaan iyo mid kale ku qurux badan runaantii waa ogaa dad iga fiican in halkaan ay ku jiraan oo midkaan mid ka qurux badan soo sameyn karaan waxaan idin leeyahay hool wacan iyo shaqo wacan